gudoomiyaha qurba joogta degmada ceegaag ee ku bihoobay madasha midnimo muddooyinkii u dambeeyayna ku sugnaa gobolada Sool Buuhoodle iyo degmada ceegaag ayaa waxa uu maanta socdaalkiisii ku tegay deegaanka Qocondhaale. gudoomiye Farxaan Cumar Salwe waxa uu kormeer ku tegay masjidka Qocondhaale iyo goobaha ay barakacayaashu ku shuftaan biyaha. deegaankan oo ay ku sugan yihiin barakacayaal aad u tiro badani ayaa waxay la daaladhacaynayaan biyo la'aan baahsan. gudoomiye Farxaan ayaa waxa uu gudoomiyay dadka deegaankaasi booyadii horeysay oo biyaha. sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu shir la qaatay odayaasha iyo haldoorka deegaankaasi. ugu dambeyntii waxa hadallo soo dhaweyn u soo jeediyay Abwaanka odayaal iyo waxgarad. waxaan salaamayaa qurba joogta iyo odayaasha iyo culimada iyo dadka islaamkaaba waa salaamayaa. waliba waxaan sii salaamayaa qurba joogta hayaag ee uu Farxaan nagala joogo markuu nagala joogo ayaan salaamayaa. waxaan salaamayaa qolada reer Buuhoodle oo aan cagta naga qaadin. waxaan salaamayaa qolada reer Ceegaag kulligood waan salaamayaa. waxaan kale oo ka hadlayaa annagu waxaan nahay dadka reer Qocondhaale ee Birmanka kuwa ee baahidu ku soo marto horeyna aad quudinta ugu soo dhiibi jirteen wixii Ilaahay u soo dhiibo aad u soo gudbin jirteen ayaanu nahay. waxaanu bilaha kan iyo sanadahanba waanu iska fadhinaa. waxaanu nahay dad aad iyo aad ugu dhaban dhigay dhibaatada tagaajada taharaadka colaada mid kastaba u dhaban dhigay ayaanu nahay. waxaanu idinka codsanaynaa haddii aanu nahay dadka reer Qocondhaale cid kasta oo hayaago meel kasta joogta ama miyi ha joogto ama magaalo ha joogto ama qurba ha joogto ama meel kastaba ha joogtay waxaanu ka codsanaynaa in ay gacan naga siiyaan dhismaha iyo wax cunka biyo iyo baadbale baahida. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان مركز لبعض مهد علينا مركز حفلة وحان نقبني مساجد كدبض يدا سور كيسو كم مغضو يديغان كعسيبه وكيالو Qocondhaale. waxaanu kale oo u qabanay waanu ku soo dhaweynaynaa gudoomiyaha ururka midnimo hayaag Farxaan Cumar Salwe. waxaanu ugu mahad celinaynaa isaga iyo inta kale qurba joogtaaba waxqabadka qiimaha iyo sharafta leh ay u geysteen deegaankan ilaa maalintii qaxootiga lagu soo degay ilaa yoomina hada aynu joogno. aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin wixii wanaag ay ka qabteen Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. waxaan kale ugu mahad celinaynaa halkan dadka deegaanka ah joogay ilaa maalintii la keenay yoomina hada ayana joogay hawshooda ka watay iyana inay deegaameeyaan oo dhulkani deegaan noqdo ku tacab jiray hawshiisa ku waday baanu iyana ugu mahad celinaynaa. inta markaan ka gudbo waxaan u sheegaynaa dadka ehelka ah ee deegaankan u dhashay qurba iyo gudaba jooga in deegaankan u baahan yahay waxqabad sida imika masaajidka naga dambeeya uu qabyada u yahay wixii kale adeeg bulsho ahaana aan wax quman looga bilaabin. deegaankan deegaan cusub oo imika u baahan in wax laga qabto. nin kasta oo qof kasta oo muslim oo muxsinana uu u baahan yahay wuxuuna u sii baahan yahay dadkii deegaanka ahaa ee deegaankan u dhashay ee magacan ku aftirsada haddii qurba joogaan iyo haddii guda joogaanba. waxaan intaa kaga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. soo dhaweynta iyo xog waranka waxaan kala mid ahay intii iga horeysay ee deegaanadan dhowdhow ama ka timid ama joogtay deegaankan Qocondhaale. warbixinta masaajidku meeshuu marayo iyo inuu socdo baraagtii iskuulkii MCHkii intaba waa jiraan waana laydiin taabtay. waxaan anigu u baxay oo aan rabaa inaan warbixin kooban idinka siiyo guda iyo dibadba dadka magacaa. dhulkii waa diyaar sarfaygii oo wax yar ka dhiman yihiin
وإن شاء الله تعالى أنه قياس إنه كل ما كرو ويجوده أيها إن يري هالكاس باقي كتهاي هدي أيضا ما تنا وحنوب لنا ما أنت وعمالين جمعة بيشنا والله لوا كونسيدير يتبانك جمعها سادية الله يدمو إن دول كلا قيبيو دلشوق يدبتشوق بالله قيبيو عدي في بحسي يعدي ديغان هيد يعدي كلا هذا أنك سو قيب جلين عد والبوحة لوجيسين يا إن الديغان كاسي مقل وجنا ورخيص وجنا سو قيب كشو هدي الله يدمنا هوشي سبحانه وتعالى إني سو جبودو جماعة دم هدي الله يدمو سجال كبيش أكو بيجن ساسان الله بالله أنا قضب كاسان رقيو بحي وادنا سلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gudambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha madasha midnimo Abwaan Farxaan Cumar Salwe waxaan hadaladiisii ka mid ahaa Rahmaan Rahiim waxaan joognaa Qocondhaale aad iyo aad baa la igu soo dhaweeyay waxaan mahad celinayaa odayaasha Booqdey ka yimi Ibrahim Yusuf iyo Cali Cabdi Ciise iyo dadka deegaanka Qocondhaale oo si milgalay soo dhaweeyay waxaanu u nimid booqasho kaliya oo maan niman safar shaqo waanu guda galnay hawrihii wax badanna indhahayga waan ku soo arkay wixii naloo sheegi jiray iyo wax ka saayidsanaysa macallin oo aan soo arkay way jiraan haday ahaan lahayd xagga deegaanka sarfeyga socda iyo hawruhu meesha ay hadeer marayaan iyo hadii ay noqon lahayd baahiyaha meeshan ka jira iyo biyo la'aanta iyo dhibaatada dadkii meeshan qurba joogta hayaag madasha midnimo hayaag ay keentay hadeerta ku haysta sida ugu tabaalaysan yihiin haba ugu daraato biyo la'aantu warbixintoodii iyo aragti iyo iswaraysi dhammaan waa aan soo koobay Farxaan Cumar Salwe gudoomiyaha madasha midnimo isagoo hadalkiisii wata waxa uu baaq u diray qurba joogta degmada Ceegaag ee ku sugan dalka dibadiisa isagoo ugu baaqay in ay biyo iyo baadba la soo gaaraan dadkan ay saameysay abaarta adkeeyay soo martay dalka waxaan ugu baaqayaa qurba joogta hayaag meel kasta ay joogaan hawliya aynu halkan ka haynay way hakadeen muddadii ugu dambeysay waxa loo baahan yahay in sida ugu dhaqsaha badan hadeerta aynu dardar gelino dadkana ma sii joogi karayaan meesha mana noolaanayaan hadii aanay helin gacantii iyo taakulada qurba joogta haba ugu darnaato biyuhu waxa isaguna meel fiican maraya dhismihii masaajidka aad aragtaan oo 2 mitir hadeerto dhaafay bareegta waan booqday iyada way dhan tahay way maran tahay iyada laftigeeda waxay u baahan tahay biyo hadii kale way dildilaacaysaa waxa ku dhacaysa qorraxda dadkuna inay munaafacaadsadaan bay u baahan yihiin dad bay u baahan tahay iyo hadh marka wixii warbixina kulli madasha dib aynu la wadaagi doonaa laakiin dadka deegaanka laftigooda waxa laga doonayaa inay dadaalaan oo isxilqaamaan wixii ay qaban karayaan ay qabsadaan ma aha reer Qocondhaale kaliya dadka aan la hadlayo laakiin dhammaan dadka deegaanka ka soo jeeda ee deegan magaalooyinka kale sida Booqdey iyo Ceegaag iyo deegaamada ku hareeraysan inay wax qabad la yimaadaan baa la rabaa hawsha loo qaybsado gudaha iyo dibadda labada qolobana ay muujiyaan dadaal oo billahi tawfiiq wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh وليبان أحمد ليس ليبان قرن وركة تلفزيون كعالمي Somali News deegaanka Qocondhaale